Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan waa channelkii aad uga barateen kusooyinka jacaylka oo taxane ah, xigmado, murti, maad iyo mawduucyo inta badan la xiriira arrimaha dhalinyarada sida haasaawaha, xiriirada jacaylka iyo mawduucyo kale oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee nolosha sida farxadda, murugada, ciilka, waxla'aanta, niyad jabka, khiyaanada, daacadnimada iyo arrimo kale oo aad ka kororsan karto aqoon iyo waayo-aragnimo kor u qaadi kara garaadkaada. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, fadlan rukuma ama subscribe garee si aysan ku dhaafin dhacdooyin iyo qisooyin laga yaabo in ay noloshaada si gaar ah u taabtaan ama ay saameyn kugu yeeshaan. Haddaba maanta waxaan halkan idinku soo gudbinayaa mawduuc aad u xiiso badan oo ah maxaa kordhin kara xiisaha kalgacalka ama xiisaha jacaylka. Waa mawduuc ay in badan oo idinka mid ahi ay wax badan ka faa'iidi doonaan ayagoo laga yaabo inay ka helaan khibrad ku aadan sida aad kor ugu qaadi karto ama sidii aad kor ugu qaadi lahayd xiisaha kalgacalka qof uu xiriir jacayl idinkala dhexeeyo, wiil ama gabar ciduu doonaba ha ahaadee. Qodobada ugu muhiimsan ee aad kor ugu qaadi karto xiisaha kalgacalka ee qof aad jeceshahay waxaa kow ka ah xiriirinta, in aad xiriiriso qofka si aad si joogto ah ugu warhayso xaaladiisa amaba xaaladdeeda. Xiriirka oo noqon kara mid wicitaan ah ama mid qoraal ah ayaa isaga qudhiisa u baahan khibrad iyo daraasaad aad ku samayso qofka aad xiriirka la leedahay, dabcigiisa amaba dabcigeeda. Maxaa yeelay waxaa dhici karta in qofka uu xiriirka jacaylka idinkala dhexeeyo inuusanba ka helin amaba aysan ka helin haddii ay gabar tahay wicitaanka badan ama fariin qoraaleedka badan. Marka haddii aadan si fiican u garanaynin qofkaasi waxa uu ka helo ama uu neceb yahay, waxaa dhici karta adiga oo isdhahaya kor u qaad xiisaha kalgacalka in aad iska sii fogayso qofkii aad jeclayd amaba ku jeclaa adiga. Sidaas daraaddeed waxaa wanaagsan in aad kolka hore si fiican u barato oo aad weydiiso waxa uu jecel yahay ama waxa ay jeceshahay si aysan u dhicin is-affahmi waa marka dambe sababi kara inuu xiriirka istaago oo uu sii socon waayaba. Tusaale, qof aanan jeclayn amaba ka helin wicitaanka joogtada ah, haddii aad si isdaba joog ah u wacdo sidii adiga oo dayn ku leh oo kale, way iska caddahay in qofkaasi uu ku dhibsan doono, kama dambaynna halkaa laysku macsalaameyn doono. Sida ilbaxnimadaba ku jirto ayaa ah in aad qofka ka codsato xilliyada aad wici karto oo uu firaaqada yahay amaba ay firaaqada tahay si aan wicitaankaada loo dhibsanin. Dhanka kale, waxaa dhul jira awgeed uu qofka fursad u waayo inuu ku soo waco ama ay ku soo wacdo. Haddii aad horeyba iska caburiso iskana dhaadhiciso fikrado shaki ku dheehan, waxaa durbaba bilaaban kara mugdi iyo madmadow aan caawinaynin inuu sii kobco xiisaha kalgacalka. Dhanka kale, waxyaabaha kordhin kara xiisaha kalgacalka waxaa ka mid ah ereyada dabacsan ee qalbiga taabanaya amaba saameynta ku leh sida abow macaane ama abbaaye macaan, aad baan kuugu xiisay muuqaalkaada iyo maqalkaada intaba. Kolka aad ila hadlayso waxaan dareemayaa farxad xad dhaaf ah, xaqiiqadii aad baan kuu jecelahay, iyo ereyo kasii dabacsan oo toos qalbiga ugu dhacaya. Runtii kordhinta xiisaha kalgacalka qudheeda ayaa ah khibrad iyo waayo-aragnimo u baahan in aad barato taasoo haddii aadan lahayn caqabad ku noqon karta xiriirkaada. Waxyaabaha kale ee kor u qaadi kara xiisaha kalgacalka waxaa ka mid ah inaad si fiican u taqaano mawduucyada uu qofku jecel yahay amaba ay jeceshahay in looga sheekeeyo. Tusaale, qof jecel inaad ammaanto mar weliba oo aad kor u qaaddo ammaanteeda ama ammaantiisa. Haddii aad isboortiska uga sheekayso, way iska muuqataa in sheekadaada lagu caajisi doono, kadibna la raadsan doono cudurdaar looga sirriiban karo sheekadaada madaxa ah. Kaftanka iyo sheekooyinka gaagaaban ee qofka ka qoslin kara ayaa udub dhexaad u ah kordhinta xiisaha kalgacalka. Isku day inaad noqoto sheekeeye macaan oo kaftan badan, iskana ilaali in aysan sheekadaadu noqonin xanta dad kale oo aad maantoo dhan falanqaynayso. Inkastoo ay jiraan qaar aan kala jeclayn in qof la xanto iyo in kale, kolba haddii loo sheekaynayo amaba laga qoslinayo badan,
qisooyinka xanta u badan marna qayb kama qaataan kordhinta xiisaha kalgacalka. qodob kale oo muhiim ah ayaa ah gacan furnaanta iyo isku habeynta hadiyadaha khaaska ah, taas oo aanan mar weliba hal dhinac ka imaanaynin, maadaama ay Soomaalidu ku maamaado gacmo isdhaafay ayaa gacal ku jira. Isa siinta hadiyadaha iyo is caawinta waxay abuuraysaa kalsooni baaxad weyn leh iyo is-aaminaad. Tan kale ee muhiimka ah ayaa waxay tahay in aadan marnaba isku dayin in sifo aan sharci ahayn aad isku dayso in aad kor uga qaaddo xiisaha kalgacalka, maxaa yeelay waxay durbaba sababi kartaa in la kala aamin baxo, xiriirkana uu halkaas ku burburo, taasoo ay u badan yihiin dhalinyarada maanta jirta. jacaylku waa farxad iyo nolol, laakiin sababta ugu badan ee burburisa jacaylka ayaa ah aaminaad indha la'aan ah iyo ka tallaabid xuduud aan loogu talagelin in laga tallaabo guurka ka hor. mawduucay ku saabsanaa sidee lagu kordhin karaa xiisaha kalgacalka halkaas ayuu inoogu egyahay. waxaa idiin soo diyaariyey halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah al-ustaad Axmed Diiriye Afrax. adinkana waad ku mahadsantihiin sida aad mar weliba ugu xiran tihiin channelkan. waa Axmed Diiriye Afrax oo idiin rajaynaya nolol farxad leh meel weliba oo aad dunida ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi